عليكم. عليكم السلام. كتابة عافية أنا ما شاء الله. سمير عبد الصمد. ها محضرة. أبوك ورث حواي دنك عليه. أوكي محاوى إذا أنت أول هنا محاكو سمينا. لما وسخ لي أوكي إن بدل أوقع عن حوضك على السعودي. صح. حامل محاد هذا وحاني أقف كجعل قفكو جعل ريما كجرتا مسوى هردونيسا أبو ريم حاكي أنا قفري بوزة وعز مجلس هذا الله كواد ليس هذا الوقف ينقو ما بهم سولو مجي هردائي على كرم كأساس موج سولو مجي على كرم ويلك عركتها قرحة بنزم رالنا قولان معاني سوري نمبركيغا حقيقة كنتارت هو لمبركاك واحد المهم هاي نحن تكون شيء لكن قف كدرين صاحة تنا إن الموف كله ذاكتو محاضر نامر waxaad u baahantay jacayl miya حاجة حلوة بانا waa iga raali noqonaysaa walaal jacayl waxaad sida hamigayga ma ahan أبو ما اسكو دايدي raali noqo dadkan wareersan waa igreediyiin waa iska soo kaawacaya haddana ay kaa leeyihiinna ma lahan waxay iisoo falaashaysaa gabadhan maxaa daran أبو حنا بحيبدو مني تليفون qale walaal iga dhamo oo kaa seexday hurdo ahaysay يبو كلام كفتو معي سوما waxa aad kaftaa dhaafay qofkaad isku sheekay اسكو داي حتى أنا ضدك قف بلادي كجانس على السياسة okay نجانس اسكو okay soo hadal أوكي وحارة أنا حرير يلا xiriir ها صوتي وحاقف كجعل horta yaa tahay isku kay sheeg xiriir ha ila hor imaanina فاحنا قبل ما أنت أركيسي يولا شالة تاجنت gabadhi walaashii la taagnayd ها bella waa kuu soo isug bella هلا bella أبوه محبوب دعين أبوه محسن وكلني lambarkayga siis يا ha ii dhehe anaa heerkaas ku gaarsiiyey أبوه معي وكلني أنا مركز سنة وكلنا تنوي sariir saan camal amaad ku seexan jirta أبوه حاسة محمش مو بيا محبوب lambarkaygaad siis لمبر سي أبوه fadhiiso أبوه أنا وكل ولا شاميو lambarkayga qofkaas sii sheeg أبوه أنا نمبر كي قف دم سنين gabadhii soo wacaysa maxaa waay dhehaysa قبل yaa قبل سي أبوه gabadhii soo wacdo gabadhii haddaa beel la taagnayd waay dhehaysa أنا بس أبوه أنا والله شا مقطع واحد كست أفكر مكشي كري أنت كسوع على المسكلة هذا شيء أنا محيو قيلني fadhiiso أبوه معاني lambarkayga adi ma siinna أبوه ها maxaa u dhehaysa marka hada qofna ma siin أنا قف بس إن ما أنا أبوه قبل ما إيش كتير ضدك من كلام ملينا ضدك ملينا وصاونها سامر كستي وقيلس ودميني يقول ذلك نفعي ناس كعلوا يا ربط هذه lambarkayga maad qaybinaya marka ما قامن قبل أسوأ كاهش وحيتر وكا وكهله وكسر كده ولا الكيس كده ولا الكينا قدام مربيو أنا ككيس أنا لمبر كيس ميسي كرتها وكده هذا أنا إنسان خصوصي ma ka war haysaa sariirtaan ku seexan jirnay أبو هاد ماشي سوحاس متاجنا ما أنا i dhegeyso adaan kula hadlayaa gurigaan degnayn sariirtaan ku seexan jirnay أبو هاد مكرينا وحاس ماشي متاجنا وحيالا هورس كده فنو أبو naag hadaad lambarkayga siisid oon maantayta xiriirkeeda aqbalaba kasoo qaad lacal oon jeclaado أبو داخلك وطالع may kula tahay i dhegeyso waryaa may kula tahay samiirka hore oo shaqaynayo
oo naftiisa kuu huraayo inuu ahaanayo boosaa adi iska dhigtid le waaye saas miya an walaashaha meel makaaga haraayo naagtaasna gabadhaas naagna ma gabar waaye abo magaceeda Safaa la dhahaa way kaa hesha maxaa abo magaceedana ma rabnaa maana weydiina xitaa magaceede anoo ku sheega abo iskala hada gabar miskiin waaye iskala hada adi ma naag in ay shukaamiso ma bilowda bo adigana waa xirxirantaa maxaa ma raba an naag maxaa hadee ku raacay maxaa iga rabtaa naagta dheerno aan ma ku rabi dhaa maxaa abo ani u qeelinayaani markaadan raali qaadee iska baxaani markaasaan ay u qeeqeynay marka dambe camaleen dana gurigiina kaaga taga say u qeelinaysid xageed aaday moogi ma u qeelinay naagta meel ma iska saartaan maxaa iga rabtaa ani okay raali noqo waa kaasa wax qalada ay gal raali noqoyde qalada ay gal waxa ismeen waa darbax raali noqoyde adoon waa dile raali noqo marka dhinta raali noqoyde maano maxaa dhimasho isku tilmaamaysaa abo ana waxaa rabaa maxaad rabtaa abo waxaa rabaa no ifahno kuma fahmayo ii sheeg waxaa rabta abo markasta ifahna ku dhaha ma fahmaysid lacagaa rabtaa waa ku ogahay kala bax qaanada meeqo intaad rabtid la bax hay qaanada ama shaatiga dad wada abo meelaha dhan baabaar adi meelay ku jirta ma aqaano waxaa arkaa qaadana maano jaakadii haddaa aan qabo xitaa lacag ku jirta kala bax dhibley walaashay dhibley waayo ugu runtii waa jeclahay walaashay laakiin gabarii waxaan ay galayso inaan qof jeclahay maba ogaba waad ku mahadsan tahay guri qurux badanna waa degan tahay waxaan kuugu imaaday gabadh baa jirta meeshan aan saaxiibanahay oo ganacsataa marka iyadana meeting ayaan la leeyahay goorma magaalada kala barato laba maalin baa joogtahay weli maadana sandaalkeed ku jiraataa waa dareemi kartaa qofku markuu ganacsado yahay inuusan ogolaynba inuu nasto sumogeed marka gabadhana meelaan kasoo casheynayay baan isku kulanay inkastoo xataa markaan jigjigi joogay aan marar badan aan wada sheekaysanay ha waa gabadh ganacsataa maasha allah iyadana inaan kulano ayaan rajeynayaa dee waxaana jeclahay adigiyo iyada iyo anigaba inaan maaragtay meelkooda kulano ganacsigana kor wada qaad iyada aan leedahay waxayna ganacsigeena uu ku saabsan yahay aniga maxay u soo nafaaqi karaa kasof anigii adigaba ganacsiba haddayna dhex marayo iyadana ganacsibaana dhex marayo dadkana hadday ay sheerka sii badiyaan ganacsiguu sii ballaadhanaya waxaan u malaynayaa inaan hore kaaga degay magaalkan inaadan ku fududaan waa runtaa kuley ay ku badnaato waad ii digtay markaa magaalada aad joogtid magaaladan aad ku nooshahay hadda ganacsada markaa tahay haddayna ishaada dheereen waxaad tahay qof u sahlan in ganacsigiisa u baabao waxyaalahaasoo dhan waan dareemi karaa waxaan islahaa muddo isbuuc markay joogto ka bacdii ay ogaan doontaa kala socodka iyo isu socodka ganacsiga iyo dadka sida u shaqeeyaan iyo yani waxyaaba badan markay ogaad ka bacdii howlaheeda ganacsiga sii gudgali doontaa laakiin laba maalin gudaheeda dad magaalada ku fahantay oo aad weliba qof ganacsada magaalada kamid inaad la sii kulanteed aada sii okay dhib ma lahan horta aniga waxyaaba badan ayaan maaragtay soo qabtay sidaad ii maleynaysidna ma ihi ganacsi nadiifa inuu noqdo baan jeclahay dadkana kuma degdeg laakiin muhiimadda waxay tahay inaan maaragtay aan qof walba waan isleeyahay waxbaad ka faa-iideysa aan saaxiib la noqdo ganacsigaygana aan ku darsado sheerkayguna ciyaar maaha qof haddaan maaragtay la sheergareeyo
xoolahaygana laguma degdego anigana qofka kuma degdego dhan ware ka seexo inuu qof aniga naftayda ama xoolahayga uu kusoo degdego ka seexo ku noolnahay boqolkiiba 90 ganacsatada waxay badan rag dumarka ku yaryihiin saas ay tahay ma jiro nin ganacsada ah oo nin kale ganacsada ah kusoo lafaa ganacsigiisa ama sheer nooga sameeyo weliba si degdeg ah asagoona qofkaas iska hooyo misdhihi kale hubsiin la-aana ku haysataa oo qof aad 2 maalin ku baratay inaad ganacsi la samaysid rabtaa waxay la tahay inuu degdeg ugu jiro adig maya muhiimadan meesha u imadayba waxay ahayd inaan si degdeg dadka ula qabsado ganacsigaygana aan horumariyo ganacsigana bilaadanka inaad soo barato oo soo baadbaadha maaha waxaan waa sheer agreement bana la kala qoranaya wax la isku degdegaya maahan marka anigana naag anigoo kala waxbay kama qaadi karto rag baa waxay ka soo qaadi waay marka waxaan ku dhihi lahaa aniga tayda ha ka warbahaarin laakiin haddii adiga qaybaha kale ee aan sheerka nahay aad kusoo darsan karto gabadhana sidoo kale haddii kalena anigii adiga dhinaceena sheer ka noqonana dhinaceedana aniga ayaa iskaga filan qof walba adiga ku ogolaaday waxay u qaadatay muddo bil ah inaan ku aqbalo oo sheer kula sameeyo haddii sida adiga aad degdeg dadka aad ugu degdegaysid ganacsiga inuu heer gaaro awgeeda anigayga saas maaha dhan wari ka saxa marka farqi inuu dhexeeyo wuxuu yahay anigu qofku waxaan geliyaa muddo aan ku barto meeshuu ka imaaday iyo ganacsigiisa kasoo jeedo iyo meeshuu ganacsigiisa ku biishato kadib waan isdhihi karaa qofkaas ganacsigaaga waad kul faaqan kartaa ama sheer waa la sameyn kartaa waxaa wadaagi kartaa hadday macquul noqoto waxaad kusoo wada sheekaysataan oo labadiina idinka dhexeeyo macquul hadday noqdaan wixii kasoo baxo waxaa laga yaabaan wax ku darsado inay kusoo darsado bal ka hor labadiina soo kulma soo sheekaysta ganacsigiina iyo howlihiina waxaad kasoo sheekaysan kartaan kasoo sheekaysta kadib isoo bayaani waxaad isku soo go-aansataan labadiina markaasaad kasoo fikiraya waxay macquula ganacsi aan ku darsan karo horta taxadirkaa ku badnaado maadaama ganacsada aad tahay qof ganacsi ku jiro oo intaasoo wadan la xiriira intaasoo wadanna ugu imaadaan badeeco waxaa laga yaabaa in hantidaad lagu qoori waayo dhibaato lagu gaarsiiyo qof walba oo ganacsada magaaladan joogana ganacsigiisa waxbaa u dheer qof walbana kartidiisa iyo wuxuu ku joogaa lacagtiisa waxaad arkaysaa dad badan oo dowladda ku jiro garabna la leh dowladdana sheer la sameeyo waxay ayagu wax ka qaban waayeen dowladdu u isticmaalaan inay wax ka qabtaan waad ku mahadsan tahay horta warbixinta aad siisay iyo sida aad maaragtay mar walba iga ilaalinayso dhibaatada inaan la kulmo laakiin wax walbaana naftayda ka adag oo iska ilaalinayo dhan waari haddana waxaan rabay inaan kuu sheego arrinkaas inaan la kulmayo gabadh ganacsata ayaan intaan kuu sheego meesha nagu imiday anagana haya cabsanin ganacsi waan aqaanaa wadano badan baan soo maray dhibaatooyin badanna waa lasoo kulmay waa runta wax walbana waan kasoo gudbay ganacsigayga aniga istaajiyey ilaa heerku maanta taagan yahayna anin baa keenay dhib walbana waan kasoo gudbay marka ha ka walbahaarin midaas inaad soo badnaatid baa muhiima taasoo thank you waan ku soo dhaweynaya